السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي عال كسر هذا FBL Somali ومركل أي برامج كني أنا وهالليني فانتسي بريمير ليجا وحنا ولا ساعتان ستان سبورتس إيو channel كان يوتيوب كا FBL Somali هدي أدخل عصب تاي channel كا يوتيوب كا فضلا سبسكرايب صار سيدو كلا وحن برامج جدا كباهنا وأن بوك كلنا هاي فيسبوك تويتر كا إنستغرام كا وأن هالكاسنا أن سجوكته وصل دابعنا هالكاسنا نقول ساعة كلها هاي waxaan naga soo dhamaaday isbuuc ciyaareedka 28aad oo aan ognahay in maamulayaal badan ay dhibco aad u yar ay keeneen celcelis ahaanna markii la isku dardaro dhibcihii la keenay waxa ay ahaayeen 42 ay ahaayeen marka waxaad ka garan kartaa meeshaasi in ciyaaryahanadii ugu badnaa ee maamulayaasha ay haysteen in dhibco aad u kooban ay keeneen haddii aan fiirino kabtanadii ugu badnaa ee la saartay toddobaadkii la soo dhaafay waxa ugu badnaa Fernandes dhibcihiisu waa qiimihiisu waa 11.3 waxaana kabtan saartay tiro gaaraysa 1,474,000 dhibcaha uu keenayna waa 3 dhibcood oo kaliya Harry Kane oo isna ahaa ninka labaad ee kabtanimada ugu badan la saartay waxa uu keenay 1,068,000 oo qof waxaana uu keenay 2 dhibcood waxa ku xigay Mohamed Salah oo aan ognahay in qaab ciyaareedkiisa waayadan dambe ay aad uga taalay maadaama kooxda Liverpool ay si guudba ay xoogaa ay hoos u dhac uga muuqday waxa kabtan saartay tiro gaaraysa 810,000 oo qof waxaana uu keenay 3 dhibcood oo kaliya waxa kaloo ayadana cilad noqotay oo dhibaato dhinaca maamulayaasha mar walba xilli ciyaareedkan aan ognahay in ay caqabad ku ahayd maamulayaal badan Pep Guardiola iyo tacticadiisa ku saabsan in uu isku bedelo ciyaaryahanada laba nin oo kamid ahaa raggii ugu badnaa ee kabtanka la saartay ayuusan ku bilaabin isbuuc ciyaareedka la soo dhaafay waana De Bruyne iyo Gundogan markaan taas ka gudubno oo aan u gudubno dhinaca maamulayaasha toddobaadkii la soo dhaafay ciyaaryahankii ay ugu soo iibshada badnaayeen waxa ugu sareeyay ninka lagu magacaabo Bale waxa uu keenay 1 dhibic oo kaliya waxa ku xigay ninka kale oo Kane oo saaxiibkiis ah waxa uu keenay oo kaliya 2 dhibcood marka halkaas waxa idin kaga muuqda yani si guud marka la isku dardaro sida uu ekaa isbuuc ciyaareedka la soo dhaafay sidoo kale ciyaaryahanada waxa jira dhaawacyo ay soo gaareen sida ninka lagu magacaabo Son oo ciyaartii ay Tottenham ay ka hor imaatay kooxda The Gunners Arsenal uu 19 dhibcood markii mareysay 19 daqiiqo markii ciyaarta mareysay uu dhaawac soo gaaray ninkaas oo maamulayaal badan ay kabtan saarteen sidoo kale waxa kaloo isna dhaawac uu soo gaaray Bamford oo u ciyaara kooxda Leeds Bamford ayaa ku soo bilowday ciyaartii ay Chelsea ka hor imaadeen laakiin ma sii wadan oo daqiiqadii 30aad ayuu dhaawac uga baxay garoonka iyo si guud Manchester City ciyaaryahanada sida Sterling Foden oo iyagana aan lagu soo wadarinba shaxda marka waxyaabaha ka qayb qaatay in isbuuc ciyaareedkan uu ciyaaryahanada inta badan ama maamulayaasha inta badan ay dhibco hoose ay keenaan arrintaas ayaa ugu darneed oo maadaama shaxda ciyaaryahanada ugu qiimaha weynaa inta badan ay dhibco aysan keenin sida Fernandes, Kane iyo Bale iyo raggii Mount oo kamid ahaa oo la soo wada iibsaday haddii aan fiirino isbuuc ciyaareedka dadkii ciyaaryahanadii ugu dhibcaha badnaa oo u badnaa ciyaaryahanno differentials ah oo farqi ah waxa ugu sareeyay oo dhibco badan keenay ninka lagu magacaabo Kelechi Iheanacho oo u ciyaara kooxda Leicester City waxa uu keenay 17 dhibcood Kelechi ayaa saddexley ka dhaliyay kooxda Sheffield United oo aan ognahay xaaladeeda inay horyaalka ugu hooseyso haddii aan si guud marka fiirino ciyaaryahanada kale ee dhibcaha ugu badnaa keenay goolayaha haddii aan ka bilowno waxa markii labaad ee xiriir ah ka soo muuqday Kings of the Week ninka lagu magacaabo Muslera oo u ciyaara kooxda Leeds dhanka daafac markaan fiirino daafacyada kooxda Manchester City oo xilli ciyaareedkanba si fiican dhibco u keenayay Stones iyo Cancelo ayaa ka soo muuqday Stones ayaa gool dhaliyay sidoo kalena shabqiisa ilaashaday waxa kaloo dhibco keenay Cancelo wuxuu sameeyay caawin waxa uu keenay dhibco gaaray 12 dhibcood Dunk oo u ciyaara kooxda Brighton ayaa keenay 10 dhibcood Luke Shaw oo u ciyaara kooxda Manchester United oo shabqiisa ilaashaday ciyaartii Manchester United ay ka badisay kooxda West Ham ayaa 9 dhibcood keenay ninka u ciyaara oo kabtankan u ah kooxda Crystal Palace ee lagu magacaabo Luka Milivojevic ayaa keenay 12 dhibcood
ninkan ayaa dhaliyay goosha keliya ay uga badiyeen kooxda West Brom. nin kale ee asna 10 dhibcood keenay dadka haystan ay aad u yareen waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Trossard wuxuu ciyaaraa Brighton gool ayuu dhaliyay oo Brighton oo gool muhiim ah ka soo gaartay kooxda Southampton. sidoo kale ninka lagu magacaabo McNeil oo ciyaara kooxda Burnley ayaa waxa uu keenay 10 dhibcood. McNeil ayaa ka qayb qaatay in kooxdiisa Burnley ay 2-1 uga badiso kooxda Everton. waxaa kaloo 10 dhibcood keenay Martin Odegaard oo ciyaara kooxda Arsenal ayaa gool ka dhaliyay kooxda Tottenham Hotspur oo Arsenal ay 2-1 uga badisay. marka waxaad ka garan kartaa ragga shaxdaas dhaxda ugu jiro dhan inta la haystay aad ay uga yaraayeen 10%. xagga weerarka waan soo sheegay Kelechi Iheanacho oo hat-trick dhaliyay iyo saaxiibkiisa Jamie Vardy oo 2 caawin sameeyay oo isna keenay 13 dhibcood. tiradaas markii la isku dardaro waxay noqdeen 127 dhibcood. toddobaadkan marka si guud markaan markaan si fiican u fiirino waxaad moodaa in ciyaaryahanadii lagu tishanayay aysan dhibcihii looga bartay aysan keenin. haddii aan fiirino Aston League iyo sida toddobaadkan loo kala keenay dhibcaha waxa ugu sareeyay maamulaha ugu dhibcaha badnaa wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo Amir Mansour waxa uu keenay 84 dhibcood. 84taas dhibcood waxa uu ka keenay wuxuu ahaa nin aad u adeegsada ciyaaryahanada farqiga ah oo inta badan aanan inta badan la haysanna isticmaali jirin. sidaas darteed uu ku faa'iiday waxa uu keenay 84 dhibcood. kaalinta koowaad ayuuna ka galay isbuucan oo markii loo fiiriyo maamulayaasha kale ee saaxiibadiisa ahaa ee liiga ka wada tirsan asaga ugu badnaa. goolhayaha wuxuu watay ninka lagu magacaabo Schmeichel oo u ciyaara kooxda Leicester City oo 5-0 uga badisay kooxda Sheffield. wuxuu kaloo haystay haddii aan xusno 4 ka mid ah ciyaaryahanada toddobaadkan dhibcaha ugu badnaa keenay waana Stones, Diaz, Shaw iyo McNeil. waxaad ka garan kartaa marka ninkan khamaarkiisa iyo shaxda uu adeegsaday oo ahayd mid aan dadka aan inta badan aan la haysan. waxaa kaloo shaxdiisa ka mid ahaa Robertson oo u ciyaara kooxda Liverpool waxaan ognahay toddobaadkan ay guushii ay ka gaareen kooxda Wolves oo 1-0 ay uga soo badeen sidaasna ay shabaqooda ku ilaashadeen 6 dhibcood ayay keeneen. waxaa xusid mudan maamul Caamir in kabtankiisa De Bruyne uusan ciyaarin oo markaa kabtan ku-xigeenkiisa Calvert-Lewin loogu dhuftay jibaarkaasi kabtanka oo halkaasna kabtankiisa uu 12 dhibcood ka keenay. sidoo kale wuxuu watay Lacazette oo keenay 8 dhibcood. dhaxdiisa ama markaa fiirino ciyaaryahanada dhaxda uga ciyaaray McNeil oo aan ka soo sheekeynay oo u ciyaara kooxda Burnley ayaa 10 dhibcood u keenay. labada nin kale waa Rafinha iyo Mount min 3 ayay keeneen. iyo Bamford aan ognahay in toddobaadkii la soo dhaafay uusan sidii la filayay uusan noqon oo jug yar ay soo gaartay. Bamford waxaan ognahay in 49% uu ka mid yahay ciyaaryahanada maamulayaasha inta badan ay wataan. marka maamul Caamir waxaan leenahay hambalyo waxa uu keenay 84 dhibcood. waa si guud waxaan leenahay hambalyo.